السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا wanaagsan meel kasta aad joogtaan soo dhawaada caawa waxaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala guurkii hore iyo kan hadda jiro guurkii hore muxuu ku fiican yahay muxuuse ku xumaa kan hadda jirana muxuu ku fiican yahay muxuuse ku xun yahay okay haddii aan dhex galno guurkii hore wuxuu ku dhisnaa dulqaad iyo samir iyo dulqaad iyo samir qoysaska iyo waayeelka ayaa door weyn ka qaadan jiray markii labada qofood ay isqabtaan waxaa soo dhexgeli jiray qoysaskooda sida hooyada iyo aabbaha ayaa soo dhexgeli jiray si fudud oo degdegsiimo ah ayaa lagu xali jiray guurkii hore inkastoo qofkii oo kusii jiri jiray maaragtay si maaragtay aanu u wanaagsaneyn macnaha samirka iyadoo maaragtay gurigii aysan ku fiicnayn ama maaragtay aysan u fiicnayn inay sii joogto ayaa haddana waxay qaadan jirtay qofka haweenka ah inay ku sabarto guurka waayo waayeelka ayaa soo dhexgeli jiray qoftii waa lala tali jiray waxaa la dhihi jiray guurkan qofkaana kuu fiican qofkan qofaan ahayn ma arki kartid mana helaysid iska joog ayaa la dhihi jiray ayadoo dareemayso inay dhib ku tahay meesha ay joogto ayaa haddana waxay qaadan jirtay go-aanka ay kula taliyeen waalidka ay kula taliyeen okay guurka hadda wuxuu ku dhisan yahay jaceyl iyo isfahan iyo doorasho shakhsiyadeed macnaha jaceyl iyo isfahan markaa ku leeyahay labada qofood ayagaa is jeclaanayo ayagaa is dooranayo ayagaa maaragtay waalidiinta iskula imaanayo iyo qofka ragga ah ama haweenka wuxuu dooran jira ama dooranayaa in uu maaragtay doorto qofka ay guursanayso qofka haweenka inay doorato qofkay guursanayso iyo ninka raggana inuu doorto qofka uu guursanayo hadda waqti xaadirka la joogo guurka hadda jiro waxaa ku wanaagsan haddii aan dhihi lahaa dumarka ragga waxay noqdeen inta badan kuwa aan samar lahayn kuwa aan dulqaad lahayn kuwa aan u fiirsanin guurka ay galayaan inkastoo sidaas ay tahay haddana qaar waxaa ku jiro mas-uuliyadda dusha iska saara inta badan balse dumarku markii xaalado qaar la soo dirsaan waa maaragtay aaday u jilcan yihiin way jilcayaan markii xaalado qaar la soo dirsaan raggu qaar uma sabraan waxay isleeyihiin qofkan waa isbedeshay wax kaleeta isku aragtay qaab kaleeta iska dhaadhicisay ayadii qofkii shalay iga daba ordaya ma aha qofkii maaragtay wax weyna iska bedeshay sidii ma aha bes isla markiiba waxaa la qaadanaya go-aan degdeg u qaadanaa guriga sidaasuu ku burburaa gabadhii ayadoo ninkii rabta haddana maaragtay xaalad degdeg kusoo wajahan ama xaalad degdeg gashay ayaa waxay arkaysaa haddana inay ninkii nacdo gurigii usoo uro waxyaabaha qaar guriga ay ka samey jirtay usoo uro saas darteeda ninkii wuxuu isleeyahay way isbedeshay ama maaragtay meel kale ka aragtay saas darteed wuxuu qaadanaa go-aan aan muhiim ahayn waxaan kula tali lahaa ragga mar allaal markaa haweenkaada aad ku aragto in jawigeeda isbedelay maaragtay xaalad kale ee gashay maaragtay inay mar allaal markii guriga aad soo gasho sanka kaa qabsanayso maaragtay ay kaa fogaanayso haddaad aragto si degdega hore ula carar dhakhtar u geey si aad u ogaato inay wax jiraan inaysan jirin si aa u ogaato ha fududaanin ma ahan dumarku ma aha mid sahlan mana aha si fudud inay kugu soo gashay maaragtay dhibka loo maro waa og tahay waxaa lagaa rabaa in xaaladda ay ku jirto aa ogaato sidaas darteeda waxaan kugula talinaha adigaa ragga adigaa sabar badan inta badan inaad maaragtay gargaar degdega u samayso la cararto isbitaal geyso baaritaan ku samayso haddii ay uur leedahay oo aa ogaato inay uur leedahay guriga hooyadeed u dirto maaragtay xoogaha soo caragedisto inta 3 bilooda ama 5 bilood ama 6 bilood guriga hooyadeed ha ku soo qaato kadib ha iska soo noqoto ama gurigeeda uga tago adig gurigiina aad guriga uga tag meesheeda cuntadeeda waxeeda ha ku karsato sidaas mas-uuliyad isku saar adigoo maaragtay nin weyn ah marka guurka hadda jiro haddaan usoo laabto
sharaxaadda aan ka soo laabto guurka hadda jiro waa mid isfahan ah iyo jaceyl ku dhisan ragga iyo dumarka labadaba waxay leeyihiin cod iyo xuquuq iyo isdoorasho inay ayaga isdoortaan inay ayaga guriga iyo xaaladooda inay ka wada hadlaan ee sidaas isku keensadaan okay laakiin samirkii wuu yaraaday khilaafkana wuu batay mararka qaar si fudud ayaa loo joojiyaa oo waxaa u joojinayo waalidka si fudud ayay u joojinayaan waalidkaas si fudud u joojinaya macnaha khilaafkiyaa batay iska dawareegiyaa batay macnaha ayagii way isxali waayeen waalidkiyaa soo dhexgalaayo wuxuu sameynayaa in wiilkii lala hadlo la damiyo gabadhii lala hadlo warkii meesha lagu soo afjaro dhibaatadii meesha ka taagneyd ay soo dhammaato okay marka lasoo koobo guurka ugu fiican waa midkee guurka ugu fiican waa midkee waa midka lagu qaato samir iyo samir iyo mas-uuliyaddii hore kuna darso oo isfahankii iyo isfahankii iyo jeceelkii hadda waa in samirkii hore iyo mas-uuliyaddii hore iyo midka hadda jeceelka hadda jiro iyo isfahamka hadda jiro waa inaad ku darsato waa inaad isku darsato macnaha guurkii hore wuxuu ku dhisnaa isfahan iyo dulqaad iyo samir kan hadda jirana wuxuu ku dhisan yahay isfaham iyo maaragtay samir isfaham iyo jecel labada inta isku darsato sidaas xaafadiina ku koriya ilma hadday imaadaan sidaas darteeda maaragtay wuxuu noqonaa guri barwaaqo iyo bashbash iyo baraare okay waa su-aale adi aan ku weydiiye adiga sidee u aragtaa guurkii hore sidee u aragtaa kee ayaad isleedahay wuu fiican yahay ma kii horaa fiican mase kan hadda dambe commentiga noogu reeba subscribe like iyo share wabillahi towfiiq